شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا sheekha caanka ee sheekh jaamac wadaade oo ka howlgala cilaajka dib uraxmaan oo dhowaanahanba howlo shaqo u joogay gobolka awdal gaar ahaan magaala madaxdiisa boorama ayaa waxay soo bandhigeen mid ka mid a qoysas ku nool gobolka awdal kuwaasi oo la dhibaatoonayay muddo badan sixir kaasoo markii dambe uu soo afjaray cilaajka dib uraxmaan ee uu ka howlgalo sheekha caanka ee sheekh jaamac wadaade. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ولا يلسيان هرو إن شاء الله يدين كل شيء وحا إلهي سبحانه وتعالى وحويا ما ركتي تلك ساحرين تا الشياطين وحويا كل شقيستان مرمل بوحي يتاجيهن إني دبقليان وحويا تلك ما ركتي مؤمنين تا أما ما ركتي مسلمين تا سي وحويا قريوه دا يوبر بريان ومستقبل كودا وحويا يوبابيان إلهي سبحانه وتعالى أيانا كور رمي إن أنا وحوي ما ركتي وحيابها يدوني أن رنتي أنا يود فليني وأي هدي وحي ربنا يود فليان ما أنت وحوي دونك كركيسة وحوي عذبكم النوراتين إلهي سبحانه وتعالى وحولي ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين لقرب يبو وحوي صوت جيان إلهي سبحانه وتعالى وحوي لقرته دا إلهي سبحانه وتعالى أيا وحوي علني إلهي سبحانه وتعالى وحوليه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وحي السمين يعني دقر يمارك تسكضي يكيد بيلا إيمانيا وحوية لكن إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامي إناني وحوية مرنبا رنتي آني قولي سنين مركا إن شاء الله سحر كا وحوية يقولي قرآن بان إن شاء الله كسو آخريني وقويس إن شاء الله مقالة الدقين بورمي وحويا إلهي سبحانه وتعالى حلي وبش رمضان وحويا أي أهيد إن شاء الله وحويا أفر يلا شن يلا باتن أيا وحوي إلهي سبحانه وتعالى كعنت نوسو قريه بل وين يقدرنا إن شاء الله إلهي يدم كيس وحيابها وككوبي هاي نمجا ساحرين تعالى وحن إن شاء الله وشيرنا وحن إن أنا وحوي كبغن ونعجز سجرينين ummadana waxa weeye runtii inay u nool yihiin dad waxa weeyaan maaragtay ka difaaci kara oo waxa weeye dhibka ay geysteen ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa iyo awoodiisa waxa weeye insha allah ku buri kara kula soo qaadan yahay halka waxa weeyaan waa dhiiskii guriga weeyaan saxanka sare la saari jiray waxa weeye lagu xiri jiray wax laga daaweyn jiray annagu sidan baan kusoo qaadnay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa fashiliyey oo ka dhawaajiyey gudihiisa bal waxyaabaha ay ku ururiyeen iyo la yaabka ay leeyihiin bal insha allah waynu eegaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idamkiisa madimada heer ka soo saar madimada heer gudaha ku jirta soo saar insha allah waan eegaynaa runtii wuu buuxaa bahalku sidaad wada aragtaan wuu buuxaa sidaasaana waxa weeye kusoo qaadnay waxyaabaha aad aragtaan baa ka buuxa runtii waxyaabahaasaa ku jira waxyaabahaasay waxa weeye kusoo guraan runtii waana waxyaaba runtii kala duduwan oo aada u kala duduwan waxa weeye waxaa ka mid a masaabiirta waaweyn ayaa waxa weeye ka mid ah waxa weeyaan maaragtay meelo waaweyn loogu talagalay in lagu xidho kuwa waxa weeye maaragtay baa iyaguna masaabiirta kale ayaa ka mid a dhirta waxa weeye lasoo gunguntay ayaa waxa weeye iyaguna ka mid ah oo wax lagu soo akhriyey waxa kamid waxa weeye iyaguna qaybta kale oo iyaguna dhira oo waxa weeyaan maaragtay kamid waxyaabaha ay meesha kusoo guraan xarkaas waxa weeye iyaguna maaragtay kamid ay soo gunguntaan runtii way xidhan yihiin sidaa waxa weeye aad aragtaan waanan insha allah furaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idankiisa waanay fara badan yihiin insha allah intaan dhulka dhig runtii aada iyo aad bay u qeybo badan yihiin halkan waxa weye iyaguna qeyb kale waxa weeye ku jira sidaa aad aragtaan kan waxa weeyaan waxa ku qoran far runtii aan la garanaynin oo waxa weeyaan maaragtay waxyaabo ay shayaadiinta magacyadoodii iyo waxyaabihii ay kaga gargaar dalbayeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay kaga gaaroobayeen ee shayaadiinta miciin ay ku bidayeen baa waxa weeye halkaa ku qoran maantana waxa weeye runtii faraha yagaan insha allah saa ugu burburinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idankiisa wixii ay sameeyeenna waxaan tusaynaa insha allah inaanay awood lahayn oo runtii wax awooda waxa weeyaan aanay insha allahu lahayn waxa weeyaan masaabiir iyo waxaad aragtaan bahalahaas irbadahaas
ayaa waxa weeye iyaguna ka mid a runtii oo waxa weeye meesha ku jira. masaabiirtu waxa weeye way fara badan yihiin, tiraba waxa weeye iyagu ma laha, nooc walba runtii masaabiirtu waxa weeye waa leeyihiin. waxaa iyaguna ka mid a waxaasoo iyaguna ay isku soo xidheen, biinkaas aad aragtaan bay isugu soo xidheen, waxa weeyaan way isku soo gunteen. kabarka guriga ayaa waxa weeye kasoo saaray, maryaha dhexdooda insha allah la geliyey. ilaahi subxaanahu watacaala ayaa waxa weeye fashiliyey. xaggan kale iyagana waxa weeye waxbaa ku jira, dhir iyo wax laysku soo shushubay, waad aragtaan. waxa weeyaan iyagana maaragtay shayaadiinta ayaa waxa weeye guriga keenay. waa qeyb ka mid a waxa weeye maaragtay sixirkii. waxa ka mid a waxa weeyaan quraaradaha aad aragtaan ee waxa weeye maaragtay cadarka iyaguna ka mid a, oo waxa weeye iyaguna ka mid ahaa waxyaabihii maaragtay ay guriga keeneen. runtii waxaa kaloo iyaguna maaragtay xaggan ku jira qeybo kale fara badan. qeybtan aad aragtaan iyaguna waxa weeye waa masaabiir runtii aada iyo aad waxa weeye u fara badan, kiilo iska dhan oo waxa weeye nooc walba leh insha allahu. waa kiilo dhan weeyaan, waa kiilogaa dhan ee waxa weeye masaabiirta ah. waxa weeye nooc kasta waxa weeye waa leeyahay qeybiyo waxa weeye in bay ujeedaa. qeybtaasi waa qeyb gaara, qeybahan waa qeybo gaara, kuwaasi waa qeybo gaara. waxa weeye way isku soo maaragtay hagaajiyeen. xaggaa haddaad aragtaan mid kale weyn baa kaga sii taagan dhexda. waxa weeyaan maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala dhagartoodii iyo keedkoodii waa fashiliyey ilaahay subxaanahu watacaala. meeshan waxyaabo runtii fara badan baa ku jira oo waxa weeyaan maaragtay waxa weeye geeda u badan. kuwaas ayaguna waxa weeye ka mid a. insha allah ilaahay idinkiisa soo urur dhammaantiin waxa weeye insha allah qur-aan baynu insha allah ku akriyaynaa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما سنعك كيد الساحر، إنما سنعك كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما سنعك كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. السحر هذا ولا يفلح الساحرون. السحر هذا ولا يفلح الساحرون. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الماكرين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اللهم أبطل كيد الساحرين والساحرات. اللهم أبطل كيد الساحر سبحانه وتعالى. وحي وكون كان كسبوا مارك تكسم أيوم باوحوية كدعي كرا، لكن وحكرا أكون كان كدعي كرا مجرو. saaxiriin tana insha allah laga cabsan maayo. runtii sidaasay u liidataa waxyaabaha runtii ay soo sameeyeen. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisii iyo kitaabkiisii ayaan waxa weeye haysanaa. runtii waxaan markaan lasoo ururinayey waxa weeye qalab laguma baadhin, laakiin ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkiisii baanu ku akrinay. waxa weeyaan maaragtay shayaadiintii ku jirtay baa ka dhex dhawaaqay. runtii waxyaabahan meelihii ay kala geeyeen bay insha allah sheegeen. ilaahayna subxaanahu watacaala waa noo fududeeyey. markaa insha allah saaxiriinta waxaan maanta halkan uga sheegayaa waxa weeyaan inay maaragtay adduun iyo aakhiraba waxa weeye ay ku hoogeen. adduunkana waxa weeyaan dhib bay qabaanoo waxa weeyaan maalkoodii iyo waktigoodii iyo maaragtay wixiiba waxay ku khasaareeyeen inay dadka muslimiinta ay dhibaan. dhibkii runtii ay geysteenna ilaahay subxaanahu watacaala waa fashiliyey oo itaaldaradiisa waxa weeye maanta way arkaan. ilaahay subxaanahu watacaala baan ugu mahadnaqaynaa. waxa weeyaan awoodda weyn isagu iskale. waxa weeyaan maaragtay noo fududeeyey runtii waxyaabo fara badan iyo guryo horo badanna waxa weeye waxyaabahan waa kala kulannay.
insha allah waa kasoo saaray. bulshada waxa weeye xanuunada noocaasa qabta ama guryaha shaki ka qabta ama waxa weeye waxyaabaha noocaasa ku aragtay insha allah waxa weeyaan way nala soo xiriiri karaan. gurma degdega baan insha allah u fudin doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idamkiisa. xaruntuna waxa weeyaan insha allah qof kastoo xanuunsanaya waxay diyaar u tahay inay waxa weeye halkiisa ku baahi tirto insha allah ilaahay idamkiisa. oo waxa weeyaan maaragtay waqtiga iyaga iyo waxa weeyaan maaragtay maalka intaba waxa weeye aan u horeeyo naftaba oo waxa weeye si daacadnimo insha allah ilaahay idamkiisa aan ugu adeegno. ilaahay subxaanahu wa tacaala saaxiriintii maanta waxa weeyaan sixirkooda waa fashiliyey. runtii waxa weeyaan magacyadoodana qaar badan waa haynaa insha allahu dhawaana waxa weeyaan waan gudbin doonaa oo waxa weeye wasaaradda maaragtay diinta iyo awqaafta iyo waxa weeyaan maaragtay laamaha amnigan insha allah magacyadooda geyn doonaa waana lasoo qabqaban doonaa insha allah qaar badan oo waxa weeye ka mid ah maxkamadna waxa weeye waa la horkeeni doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idamkiisa. marka insha allah walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa iyo qur-aanku mucjisaadkaas ayaa waxa weeye uu leeyahay. marka bulshadayda waxa weeye soomaaliyeed ee muslimka ah waxa weeyaan waxaan ugu baaqi lahaa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa intay waxyaabaha kaloo dhan ay faraha ka qaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisu waa ku filan yahay inay kitaabka ilaahay usoo jeestaan oo isku daweeyaan oo guryahooda ku akhriyaan oo awlaadooda ku akhriyaan oo meheradahooda waxa weeye qur-aanka ay ku akhriyaan oo nafahooda waxa weeye ay ku akhriyaan iyagoo waxa weeyaan cidna maaragtay marti uga noqonayn. ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisu guri walba waa yaalaa guri walba waa lagu yaqaanaa waxa weeye kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala cid ayaan marti looga noqonin. waxa weeyaan maaragtay qur-aanka ha lagu dadaalo oo hala akhristo insha allah ilaahay idamkiisa. xaruntu waxa weeyaan bishii ramadaan waxay ka howlgelaysay magaalada Booramay. insha allah ilaahay idamkiisa bishii lixaadna inay kasii howlgasho insha allah waa ku rajo weynahay sidaasaan insha allah ku tala jirnaa inay bishaana kasii howlgasho. wixii ka dambeeyana insha allah gobolada kale aan waxa weeye waqti siino ilaahay idamkiisa.